حقيقة هي إني dhalinyarada dee halkan imika hoyga ka dhigatay ee halkan uu subaxdii ku soo kala haysaynay inay sidii dad maaragtay ku jiray raaxaysanayo maaragtay si uun maaragtay wax u macaansanayay oo maaragtay nolosha u macaansanayay ay ka xidhantay maanta inay ka xidhmaysay maanta iyaga waxay u ahayd maanta kulliba wax ka wanaag ka dhamaaday ayay ahayd nasiib wanaag day wixii way inoo duuban yihiin laakiin ka faa'iideynteedu ma aha in aanu anagu halka fadhiisano cajalada ku duubno ka faa'iideynteedu waxa iskale dawladda Djibouti ayaa ka faa'iideynta iskale gudgude sidii imika loo sheegay waxaanu yidhi caawa laga dhigo dadka inta suugaanta si gaara u danaysa ha loo yeedho sababta aanu taa loo eegay waxa weeyaan mar haddii dhallinyaradii iminka ay heer wanaagsan marayso oo wixii halkan maalmahan ka dhacay ay si fiican u galeen kani mar haddii laga yaabo inuu ka yar adag yahay yaanu niyad jebinin ama intii hore culays aan loo baahnayn yaanu ku noqon bal horta intooda ha rogrogtaan intana uu dadka suugaanta marka uu kulay ku talagalkaas jira inta caawa halka fadhida waa uu xulkii intii laga gaari karayay ee dadka rag iyo dumarba uu maaragtay uu laga soo xulay ee la yiri si gaar ah maaragtay waa dadka suugaanta inkastoo jaanba in badan oo fadhida aan deemka muddadana Djibouti joogay haddii alla ka dhigo aan ogahay inay marka gudguda wax kale ka sheekayn maayo wuxuu ka sheekaynayaa wuxuu kaga duwan yahay kuwii hore halka laga tirinayay waxa weeyaan waa kii aniga iigu dambeeyay 1990kii ayuu ahaa munaasabada uu ku soo baxay ama duruufta ku xeereyd ayaa dhalisay oo ahayd halgankii ay dadka Soomaaliyeed ku jireen oo kow u ahaa dadka Soomaaliyeed halgan noocaas kow buu ahaa marka halgan muxuu u baahan yahay iyo shuruudaha lagaga bixi karo iyo khaladaadka soo gali kara ka digtoonaantooda midna waa aqoon iyo waa aragnimo iyo waqti looma lahayn cala lagu soo dhaqaaqay iyadoo waxba la isweydiin waxba laga shirin waxba lagu heshiin cadowga la isla meel dhigayo noqonaya sida loo dagaalamayo aan la isla ogolayn cid la dagaalamayo iyo waxa lagu dagaalamayo gool daloolada iman karta ee hakin karta sida loo awdayo haday timaado sida loo saxayo wax cusub oo ummadda culays iyo wixii ku dhacay baa soo dhaqaajiyay si gobannimo halgan gobannimo doo sida looga baxo ama loo maamulo ama loo wada kow bay ahayd waxay socotaba laakiin waxay marka waqtigii ugu kululaa ee ay wax kala cadaadeen wuxuu ahaa sanadkii 1988kii markii la galay dhinaca gobolada waqooyi magaalooyinka waaweyn la qabsaday ayaa ay si fiican wax u kala cadaadeen laga yaabo gabayadii hore ee muddada 9 ama 10 ama in ka badan marka jabhadihii dagaalamayay loo eego soconay dagaaladii soconayay guubaabun bay ahayd maasadii lagu taageeray ka kacay sidan hal la yeelo waxaan hal la qabto hal la dagaalamo laakiin markii si buuxda loo dagaalamay magaalooyinka la galay waxa soo baxday dhaliishii dagaalkii baa wuxuu inaga noqday dagaal yani wuxuu u dhurtay ama u dheeliyay sidii kii iska qabaliga ahaayo inagu dagaal waa dagaal hubka hala soo gurto hala yaaco hala dagaalamo yani inay fikradu intaas yaad moodaysaa inay ka baxsanayn laakiin dagaalkani dagaal gobannimo doon inuu yahay waajibaadka laga sugayay la doonayay oo isagu
ku socon karaa inay intaa ka badan tahay markiiba saas uu dheeliyay markaas la dhikaraanigii iyo macallinkii iyo kii PhD-ga ahaa iyo kii professorka ahaa iyo kii askariga ahaa iyo kii caynkan iyo kii cayn kulli garba siman dagaalkii waa maxay qoriga markaas waxa baylahay intaasoo laamood oo miisaanta ama dheeli tirta qoriga siyaasadii iyo propagandii iyo hadii la kala goor faafintii iyo maamulkii iyo sidan iyo nidaamkii iyo disciplinekii iyo arrimahaas oo dhan waxaan qaar baa loo oran jiray bal idinku yara joogo qolihiinan jaamacadaha ka soo baxay bal waxay isku daydaan inaad bal maamul dejisaan bal idinku qoladiinan caafimaadka iyo dhaqtaradu oo nin waliba yiraahdaa oo maana la doonayaa hadhowto dagaalka marka la galo in la iiga sheekeeyo iga wala yeelayna qorigaygan qaadanaya mesela aan marka aynu leenahay baalku wixii laga noqday sidii uun tii aynu dagaalka u niqinay nina wuxuu la iiga sheekayn maayo waxaana wuxuu ku leeyahay macna darro meel fadhiiso wax xariiqo oo ilaahay ka dhigo maarti ku habsaan culayska xabadaas la saaray laakiin xabadii dhaliil baa ka timi waxa banaanaatay kaalintii siyaasadda iyo qaybaha kale aan sheegayo ayaa wax gufeeyo weydii laakiin dhinaca kale ee lala dagaalamayay intoo dhan wuu isku wadi propagandihii iyo lacagtii iyo siyaasadii iyo qorigii iyo wixii iyo tabihii iyo wixii oo dhan dabeetana inta qalab uu isticmaalaya ayaa waxay ku soo dhacaysay qorigan kaliya ee xaga kale laga jeedo markaasay ku noqotay culays aad u fara badan qoriga kaliya oo wixii kale ka hor joogsan lahaa ama dhinacooda ku qaybi lahaa ayaa meeshii ka maqan dabeetana waxay ku dhawaatay yani waxay keentay dhaawac fara badan waa loo baahnay dhimasho fara badan waqti dheer ee mashaakil fara badan ayay la timi dabadeedna markaasay sii muuqatay haddii markaa guushu dhalatana in markaa ay xataa dhaliishu ay saamayn doonto guusha dhalanaysa ayaa warwarkaas ayaa muuqday aad baan uga faa'iideysanay dagaalka waxa weeyaan intii xamar la joogay ee hoos wax loo tirinayay ama hadalka iyo gabayga uun ay ku koobnayd ama xitaa sanadihii hore halganka waxa marka aad adigu si toos ah ugu dhex jirto iyo marka aad ka yar baxsan tahay waa kala laba sawirka aan meeshan u dhex taaganahay markan waa halgankii oo aanu geed naga qarinayn waxa dhacayo aan marka qaarkood mas'uuliyadda iyo maamulka wax ka hayno oo marka ay si fiican kuugu kala cadaadaan halka ay wax ka xun yihiin iyo sababaha iyo cidda ka mas'uulka ah aniga kulliba markii ugu horeysay ee aan si fiican u sawiro waxba uun gabayga afkaartii markaa iga baxday dagaalka ma oranayo halkan baan ku soo koobay laakiin aan si fiican gobonimada waxay tahay waajibaadka gobonimadu doonayso ninka kali taliyaha aynu maqlay dictatorka aynu maqli jiray bal sawirku leeyahay yani wixii buugu qori jiray ama shariidad laga akhriyi jiray ama مثلا كي محمد سياد بريان ودح جوجني ديوانو كير بحثناينو ولي وحبا نوغو دينا لكن marka kan si toos ah waa cidina noo werinay cidina noo sheegin laakiin aan anagu dhahay ku arkayno ay wixii noogu muuqdeen marka weeyaan marka ma aragtay laga yaabo qofku habkiisii hore ee wuxuu oran jiray habka duwan inuu yiraahdo waayo iminka wada practicality waa la garanayaa practice-ku uu ka dhow yahay ama uu ka cad yahay theory-ga iyo wixii marka ma aragtay aad sida kale u haysato qaybahaas uu gabaygu ka hadlayaa waxa weeyaan dhaliisha haddii gabayadii hore lahaayeen ka kacay hala dagaal galo kani wuxuu leeyahay hala dagaal galo laakiin sidaas ha loo dagaal galo yani dhaliisha kuwaasaa jira hala saxo haddii kale socon mayso warwar buu muujinayaa sidan hadday kusii socoto oo aan la sixin qaladaadka jira inuu dhaawac imanayo aan loo baahnayn inuu imanayo wuxuu sheegayaa gobonimadu inaanay waajib qof ahayn inay waajib ummadeed tahay marka hadduu yiraahdo anigaa keligay gobonimadaas ama halganka anigaa keligay laabta u dhiganaya oo waajibkaa ka soo baxaya halkaa waxaynu garanaynaa markaa in waajibkaasi lumay waayo hawlaha nolosha ka jira ayaa waxna qof lagu halayn karaa waxna qof af lagu halayn karaa waxna ummadoo dhan lagu halayn karaa oo aan ilaa ummadoo dhan isugu timaado inta waxa wada leeyahay ilaa isugu timaado aanay waxba ka suuroobin waajib nolosha ka jira gobonimada u weyn baadidoonkeeda ama adkeynteeda iyo ilaalinteeda haddii aanay markaa ummadda wada leeyahay
haddii markay baadidoonka loogu jiro ka wada qayb gelin qorshaheeda iyo taladeeda iyo hawsheeda marka la helana hanashada aanay ka wada qayb gelin waajibkaasi halis buu ku jiraa haddii loo socdana in lagu guulaysto waxa laga yaabaa inay dhaawacaan loo baahnay la timaado ama waqtigeedu dheeraado haddii lagu guulaystay dhalatana oo aan la wada aan ummaddu waajibkaasi aanay haddii ay ka dhigo nin waliba intiisa kusoo biirina inay dheelido ay u dhowdahay inta uun maaragtay wax ka soo qaad kale ee ugu weyn waxa weeyaan waajibaadka gobonimada oo ah adna intaada la kaalay adna intaada keen xaashow keen abubakar gaariye riiraash aniga markaasay isku wax la isku dardaray awoodo la isu geegeeyey maskaxo la isu geegeeyey talo la isu geegeeyey gacan la isu geegeeyey laakiin haddii qof iyo qof laga sugo arrintaasi inaanay waxba ka soconayn haddii wax ka socdaana waqti dheer jiitan iyo burbur iyo dhaawac culus ay keenayso qaybta ugu dambaysa waxaan iskaga hadlayaa aniga waa maxay waajibkaygu ummadda aan ku dhex noolahay mar haddaanay meel wada joogin ama wax wada aaminsanayn oo laga yaabo inay qaar waxaan aaminsan yihiin qaarna sidan wax u arkaan qaarna sidan kale wax u arkaan qaarna sidan wax u arkaan dhinaca aan anigu sida ay wax u arkaan la qabo mooyaane inta kale dhaliil bay u arkaysa mar haddaana iyadu si wax wada arkayn inta aanu isku aragtida nahay mooye inta kale oo dhan waxay odhanaysaa waad khaldantahay waxaad ugu muuqanaysaa qof khaldan moogti wuxuu aaminsan mar haddaanad la aaminsanaysa hadduu qabiil aaminsan yahay waanad la aaminsanayn waad dhaliilan tahay haddii iyo wixii la mida marka anigaa naftayda kaga hadlaya talo makaasaa noqdaa shantaba ma noqon karayaa jawaabtu waa maya haddii aanan shanta noqon karayn markaa ka ugu waxtarka roon leh ayaa dee markaa loo baahan yahay inaan noqdo maansada waa la wadaagaa qofna lagama sugo halkan anagu dee qaabkuun baanu dadka ka badinaa marka loo eego aanu gooni u leenahay laakiin fikradani waliba fikradda wuu sheegaa ama fikradaha wuu sheegaa inta fikradooda kan ku jirta dee qof waliba waa intaasoo laakiin hadal caadiya uu ku sheegi karo ama qoraal ku sheegi karaa jira marka mar haddii la wadaago waxaan jeclahay intaydana inaan qaato intiinana idiin dhaafo mar haddii dadka caawa halka fadhiya ayagu weliba gaar ahaan yihiin dadkii suugaanta haddii ay ka dhigo maarta xulkii suugaanta intii laga heli karaya caawa ama laga haleeli karayay oo markaa waxba ku talax tegi maayo inaan dee maaragtay macneeyo oon erey erey u dhige waxaan isku dayayaa un halka aan israado alle halkaas waa lagama maarmaan inaan macneeyo intiina waa idiin dhaafayaa markaa sidaa ku talagala okay markaa كل بريتنا وقت الشقة وعلى الشقين ما ربنا وقت اللي أنا ضدك هلك كوهينو حريد السوم باللغة شيء ده لسلا وجادو إن برنامج كعاو حرمي هلك واحد كارك يستاسد وكبلا ما يوحويان لنا نفقره وإذا دحدي دي مرن كتيرو أو مرنا أبو جيسا نبرك كود عيا نظام كي لا تجعلمي مرنا كحن سيدا أوجود عيا إلى سفال حنو عن لو بهني يعني إنه مال قلدا أما سقلا ده إنه أوجود عيا أبارتي توسنايد أنا كود عين مركا وادي قول لبدا سوير إسلام مركلية ودا داورية إن سوير وأنا أكثر والله فرحة أو دينكيو أي حبتي كود عيسو يعني حبتي يرشيد يوم بدي وهتلاقي كده يسكوبها بين يسوع تقال ما يسا لكن أيدين عكرنا أديكو كمل السنة يا حتى يوحى سيجري لهاين ويكسي في عنان الهيد هدي اللو وده شوقي لها هدي اللو دنيا هاي هدي سياسة دي تشيري لهاي هدي مامل تشيري لها هدي بروباغندا وهتلاقي إعلام وحنا هذا أي تشيري لهاين هدي وحني وحي ماركت أي تشيري لهاين ومركا وحضر كيسا نفتاس ومرنا فرحسن مرنا مروبيسن كفرحسن جيسني ماذا الذي وميس إن لقاته كحن إن أنا قرشيه لقوا قوليسن لها أنا ضمي أي كأم ببحثها مركا وروركا غيب تهرا كتوسيسا قدون كمان كي قلبك قعشو سبوتك حاجة قرليلك شرتي يقولوا سلوقيك قبلدي يوم مشحرة دايدا يو فرح لقو هيغا قندود كيغا تا هيغا يو بحرر كيغا قرمتك يا هلوسيغا تحميو قلوف ألوس كيغا قمع الإيدة رين كيغا يجيف كالقلط كيغا قوبيالك
cagajiidka iyo meelka gabargaalka gucle orodka seeraarka iyo geelandirirkayga waa wax iswada diidan gucle orodka seeraarka iyo geelandirirkayga haddaan geestan eegana cabsida gaarkay igu raaran gabranaanta qoolaaliga iyo malagorfayntayda gadoobnaanta yeelkayga iyo kala gantoobnaanta qalabkan ku dagaalamayay sida uu kala dhiman yahay wixii gantooban ama gadoobani waa wixii aan dhammayn ee waaxi maqan tahay gadoobnaanta yeelkuna waxaa la yidhahdaa waxaan berigii hore inta xoolaa lagu waraabiyaa la odhan jiray yeelka wadaanta qabaalka haddii ilaahay ka dhigo maaragtay qalabka wax lagu waraabiyo ayaa waxaa la isku yidhaahdaa yeel marka halkan sidaasuu ku leeyahay gadoobnaanta yeelkayga qalabkaygii dagaalka oo kala dhiman gadoobnaanta yeelkayga iyo kala gantoobnaanta kala dhinaanta qalabka aan ku dagaalamayo garab-li'ida soorhkayga iyo gooninimadayda ummaddii unbaa la kala qaybshay waayo waxba heshiiskuma ay ahayn qolo waliba mar bay iska soo dhaqaaqday dabadeedna iyadii unbaa qaarna xagga ka jeesteen qaarna xagga ka soo jeesteen waa intii xagga ka soo wada jeesan lahayd ee markaa maaragtay mar qura gacanta wada saari lahayd iyadii unbaa maaragtay marka sidaasuu leeyahay garab-li'ida soorhkayga iyo gooninimadayda goofka iyo xabaalaha shixnadan godadka buuxbuuxa cagta go-an lugaa iyo gacmaha gabawarduugoobay naafada garbaha kaashatee sumucu gaagaabshay geerida shinkeed dhaaftay iyo guri dambayskayga ha socoto uun ciidankeena halkan ka soo gura inankii geela la joogay kii barkada la joogay kii dukaanka joogay gee uun goobta gee ilaa la soo gaadhay guri dambayskii yacni waa ayaan darro weyn waxaan hubaa dagaalkaasi inta ka saari lahayd soomaali inaanay kaba badnaateen 50,000 oo qof oo laakiin ama 20,000 oo habaysan oo nidaamsan oo qorshe ku dagaalantay laakiin uu buuxi meesha ka dabagee oo xataa magaalooyinkii markii la qabsaday xabadii dhacaysay yani dhaawac wuxuu inta badanba ka yimi marka magaaladii la galay ee culays aan loo baahnayn la saaray ay 20,000 gasho ama 30,000 dee quwaddaas iyadiiba quwadda isjabinaysa mugtay iyada isjabinaysa xabadda soo dhacdaaba 50 bay dilaysaa halkii hadday 5,000 gasho dee markay soo dhacdaba laga yaabo inuu qof dhiman lahaa cagta go-aan lugaa iyo gacmaha gabawarduugoobay naafada garbaa kaashatay sumucu gaagaabshay geerida shinkeed dhaaftay iyo guri dambayskayga godaadsigayga iyo hiyiga garartalowgiisa kol haddaan wadnahu kuu garrayn gaydha kugu yeedhiye garasoo wanaa kula hadlay gacalkayow heedhe garas waan inaanu saaxiib nahay ayaan ku halqabsaday nafta gorouraheediiya haddii galowda la istaabto nafta gorouraheediiya haddii galowda la istaabto geestayda waa fule ninkii goob ka saahiday guddoon dhacayna waa doqon ninkii gaaru faashaday guri ba'ayna waa cadow ninkii raarta sii guray gobannimana waa quus ninkii gowska dhaafsaday ummad geeska loo tumay habeen gocasha soo jeedo haddii aan tashiga loo golayn amase gaashaanka fallaadhiya gabooyaha haddaan godobta loo taaban iyadoo gadoodiya hadday fadal garmaamayso hadba nabar gataatiya hadday gebidhactuuriyayso galladeeda oo dhow hadday gaadhi kari weydo inta gudashadee tahay hadday geysan kari weydo iyadoon garaysnayn haddii gacantu ay daasho gamaarshaa ku dhaca amase way gabax tidhaahdaaye gabbashay liqdaa amase way gamashiluudaaye way kala guddaa amase way kala go'doontaaye way isgawrisaa amase way feedha gurantaaye guushay nacdaa amase way gubasho oydaa mar haddii dad dagaal loogu yeedho ilaahdo soo kac waynu dagaalamaynaa aan qorshe lagu dagaalgelin oo aan talo lagu dagaalgelin oo aan maamul lagu dagaalgelin yani taasaa imanaysa inay gacantu daasho si waduun marka dambe inay marka dambe ilaahay ka dhigo maaragtay daalayso dabadeedna ay ka xumaanayso inay haddii yani ma garaysanayso waxay arkaysaa waxa hortaagan inay ka adag tahay laakiin ka adkaan mayso marka la waayo waxyaabihii ay u adeegsan lahayd inay ka adkaato dabeedna gacantaa daalaysa marka dambe waxaa laga yaabaa inay gobannimada iyo guusha iyo wax oo dhan ba iska nacdo way tahay war meesha waxba ka suuroobi maayaan inagu kala wada hawsha waa lagu daalaa mar haddaanay hawlu sideedaba haddaanay habaysnayn oo qorshaysnayn dabadeedna iyadaa iswada tuhunto
reer hebel baa sidaa yeelay iyo reer hebel baan dagaalka ka daacad ahayn iyo cali baa lugta jiidaya iyo ninkanaa sidaa yeelayo markaa shakiga yani markaasaa colaadu dhexdeeda usoo guurtaayo cadow beena baa ka dhex abuurma dabadeedna taasi halkan mar hadday goob dagaal dhexdeeda ka samaysanto dee kii lala dagaalamayay waa la ilaawaya waxaasina waa uun maamul la-aan iyo qorshe la-aan iyo tala la-aan mogta inkastoo guddoonkii burburay loo gudcura joogay inkastoo go-aankii dulliga geesinima diiday inkastoo guddoonkii burburay loo gudcura joogay inkastoo go-aankii dulliga geesinima diiday inkastoo guddoonkii inkastoo go-aankii dulliga geesinima diiday inkastoo guddoonkii burburay loo gudcura joogay inkastoo geyigu waa xorme gaarhka lagu meershay inkastoo gagaabkii cuslaa garangar duulduulay xaajada godraaca leh haddii loo gabala eego sida ay u kala geysan tahay way gundheer tahay kol haddaan garaad lagala hadhin galaba sheegeeda inta maanku gaajaysan yahay guli waa weli inkastoo aan ku faraxsanahay inaan nidaamkii ku talagalay inay tiisa noqoto inkastoo la diiday oo la yidhi maya nolol caynkaasa geeri baanu ka xignay inkastoo la yidhi maya oo markaa gacan loola tegey haddana arrimaha wax ka soo qaadka leh haddii dhinacooda la eego ama la xusuusto xaajada godraaca leh haddii loo gabala eego kol haddaan garaad lagala hadhin galaba sheegeeda inta maanku gaajaysaya guli waa weli macna kuma jiro nidaamka haddii la burburiyo oo aan kii bedelayay oo dhisan oo habaysani aanu dhisnayn yani waxa weeyaan kanuunbaad ka soo qaaday mid kale oo aanad ka warhayn oo aanad waxba heshiis kula ahayn oo aanad wax garantiya gacanta kaga haysan oo meeluu la mari doono aanad ka warhayn ayuunbaad waxaa isbedelayaa uun waa cali iyo jaamac mar haddaanu maaragtay marka horeba war maxaynu heshiis ku nahay marka aynu ninkaa ridno waa in wixii bedelaya oo dhisan oo laysku ogeyo lagu heshiisiyo lagu wada qanacsan yahay waa inay jiraan haddaanay jirin adiga wax allaale waad cadha burburaysaa uu ninkii maaragtay kugu noqday haddii ilaahay ka dhigo maaragtay halkan kuu fadhiistay uunbaad ku cadha burburaysaa maalintaad riddo laakiin ujeeddadii dagaalka laga lahaa mar haddaanay sugnayn way u dhowdahay mar labaad inay siibato sidaasuu leeyahay xaajada godraaca leh haddii loo gabala eego kol haddaan garaad lagala hadhin galaba sheegeeda inta maanku gaajaysaya guli waa weli gashigayga way dhaqan yihiin gaasaskii qabi waxaan xusuustaa xamar iyo magaalooyinka oo dhan dad ama filim ka soo baxay ama filim ku socda ama u soo safray oo dukaanka ku socda ama maqaayad shaah soo doontay ama soo casho doontay ama baabuur wado oo xaas ugu xoojinaya ayaa inta la qabqabto la soo ururin jiray 3 maalmood xero yar inta lagu tababari jiray berberaa laga soo rogi jiray maalinta afraad dagaalka la soo gelin jiray ninka dagaalka la soo gelinaya waa kuma waa ninkii sakorta reerkiisa u soo doonay ee guriga ka soo baxay ama hadii ilaahay ka dhigo maartay filimka sida caawa aad soo daawatid dabadeedna kaasa lagu hor keenayaayo cadow lagaaga dhigaya lagu sawiraya waa kii ay ahayd inuu xagga kala soo jeesto laakiin ninkii aad adigu wax ka qabay godobtaada qabaysa wali waa fayow yahay xamar buu wali fadhiyaa xagtini ma gaarin wuxuu ku soo ciidaanad adigu waxba ku lahayn oo godob ku lahayn ayuu cadow kaaga soo dhigayo maalin walba intuu suuqa ka soo xaabiyo ayuu ku hor keenaya